Assalaamu calaykum asxaabta. Maanta waxaan idiin soo gudbinayaa 5 xiriir oo ku cadaynaya inuu jacaylka indhala yahay. Marka uu jacayl daacad ah jiro, muhiim maahan da'da qofka ama muuqaalkiisa. Waxa kaliya ugu muhiimsan waa jacaylka, kaas oo ay dareemayaan labada qof ee jacaylka ka dhaxeeya. Waxaan inteena badan ognahay ama aan maqalnay inuu jacaylka indhala yahay, laakiin maanta waxaan kuu soo gudbinayaa 5 guur oo ku cadaynaya inuu jacaylka indhala yahay. Fadlan intaan muuqaalka gudagelin, haddii aad nagu cusub tahay nagu soo bir adigoo calaamada subscribe-ta taabanayo. Sidoo kale gambaleelka furo si ay kuu soo gaaraan muuqaalo walba oo aan soo gelino. Nambarka koowaad, qoyska Arizona. Jacayl aan ku dhisnayn muuqaalka qofka. Gabadhan lagu magacaabo Londonina Arizona waxay guursatay Sean Stevenson, kaasoo dhirirkiisu gaarayo 50 sentimitir oo keliya. Labadan famil waxay ku nool yihiin nolol farxad ay ku dhisan tahay, waxayna ku kulmeen saaxiibtinimo caadi ah sanadka markuu ahaa May 2009, waxayna isguursadeen June 2012 guur qurux badan oo ka dhacay magaalada Chicago. Londonina waa qofka mar walba caawiya Stevenson. Waxaan ku raaxaystaa caawintiisa, waa qof leh qalbi wanaagsan. Waa qofka aan u hibeeyay mustaqbalkayga oo dhan, ayay tiri Londonina xilli wax laga weydiiyay inay ku faraxsan tahay nolosha Stevenson. Nambarka labaad, qoyska vampire-ka ama ku dhisan dhiiga. Labadan lamaane waxay ku nool yihiin nolol la yaab leh taas oo ku dhisan dhiig iska cabid. Waxay aaminsan yihiin inuu jacaylkooda kordhayo haddii midba midka kale dhiiggiisu cabo. Waxay sanad walba iska cabaan dhiiga. Waxayna aaminsan yihiin dhiig iska cabidda inay ka wanaagsan tahay in la isku tago. Waxayna dunida u muujiyaan inuu jacaylka kordhayo haddii dhiigga la iska cabo. Nambarka saddexaad, Badawal iyo Katie. Marka uu jacayl daacad ah jiro, lama fiiriyo xajmiga qofka ama muuqaalkiisa. Taasna waxaa cadaynaya lamaanahan ka soo jeeda dalka Filibiin ee Badawal iyo Katie. Badawal ayaa culeyskiisu yahay 350 kilogram, halka Katie culeyskeedu yahay 55 kilo. Katie waa dhakhtarad ka shaqaysa isbitaal ku yaala magaalada Bangkok. Mar ay ka hadlaysay waxa ay tiri, asaga ma ahan mid qurux badan, laakiin aniga mar walba waan ku faanaa la joogiisa. Waxa uu leeyahay qalbi qurux badan oo aan ugu kaaftoomi karo weji qurxoon. Nambarka afaraad, Lin iyo Shukwenka. Jacayl kale oo aan aqoon muuqaalka. Labadan lamaan oo u wada dhashay dalka Shiinaha waxay isla nool yihiin muddo 3 sano ah. Waxay is yaqaaneen ilaa yaraantooda. Waxaa dhexdooda ka dhashay jacayl adag. Waxaad arki kartaa in Lin uu leeyahay weji aad u qurux badan, halka Shukwenka ay wejiga ka leedahay cudur ay ku dhalatay. Laakiin taas kama hor istaagin inay yeeshaan jacayl xoog badan. Waxay la kulmeen caqabado badan oo ay ka mid yihiin in qoyska Lin ay diideen inuu dhaco guurkan. Laakiin Lin waxa uu la baxsaday Shukwenka, waxa uuna ku soo guursaday meel magaalada ka baxsan ama magaalada banaankeeda. Kadibna waxa uu kala soo laabtay gobolkiisa ama magaaladii ay ku deganaayeen. Haddana waa famil ku dhaqan waddankaas Shiinaha, waxayna leeyihiin caruur. Nambarka shanaad, Amy Abrahamson. Labadan qoys waa qoys iska caadi ah oo mid walba caafimaad qabo, laakiin waxaa cajiib ah sida ay ku kulmeen labadan lamaane. Qisadan waxa ay bilaabatay markii Amy Abrahamson oo u dhalatay Sweden safar dalxiis u aaday dalka Holland 2006. Waxayna meesha kula kulantay wiilkan oo ahaa wiil faqiir ah haddana cabtooy ah oo aad u isticmaala daraagiska iyo weliba khamriga. Sidoo kale guri ma uusan lahayn, laakiin ayada ayaa jacayl u qaaday. Waa ay soo kaxaysay waxayna keentay gurigeeda. Waxayna gebi ahaanba ka joojisay daraagiskii iyo cabidda khamriga. Kadibna waa ay isguursadeen, waxayna haystaan caruur mataan ah oo weliba wiil iyo gabar ah. Waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. Haddii aad ka heshay fadlan like saar. Haddii aad nagu cusub tahay nagu soo bir adigoo calaamada subscribe-ta taabanayo. Sidoo kale gambaleelka furo si ay kuu soo gaaraan muuqaalo walba oo aan soo gelino. Mahadsanid.